gabdhaha horta isku wada mid maahan faraha ilaahay ma siinin waxaa iska soo qaada adiga wariyaha ah waxaad jeceshahay wiil kamana ahaan kartid wiilka asaga ah wuxuu ku dhahay waan ku jeclahay waan ku dhaqan karaa laakiin hantida iyo dahabka waxa sheegaysid ma haysto jawaabta adeeg ku taala waxa ku xiriirsan okay anisoy adigu waxaad ilaa hadda ka hadlaysid waa adii fikir ahaan taala annagu bulshadaas oo dhan baan u hadlaynaa bulshadaas oo dhanna qof walba fikir gooni uu leeyahay adigu haddii aad taas aad samayn lahayd oo maanta qofkii ku yimaado ku dhahaan uu dhaqaale ma haysta uu yeeli lahayd waxa laga yaabaa gabdhaha mid kamid inay ogolaanayno marka anagu waxaan ka hadlaynaa waa tan taala taas laftigeeda iyada laftigeeda marka maanta ninkii ay sidoo ku qaadato biritoolana una dhaqaale haysan iyada laftigeeda miyaan inay ku kala tagaan ay imanay meeshaasi okay adiga waan kaa wareejinaa markaana jawaabtaada ku siinaayo midda meesha taala waxay tahay guurka lagu sheegayo inkastoo badanaa culimada ay dhahaan jacaylka wuxuu yimaadaa guurka kadib laakiin waxaad ogaataa qofka bini-aadanka meeshuu mar arkooda wax ka reebi kara ma lahan yacni qofka ku jecel xumaantaada ma arko wax la-aantaadana ma arko gabadha haddii wiilka ayadoo jecel oo yacni uu usoo bandhigay inuu guursado guur xalaal rabo hadday hanti ku xirto dee ayadaaba jecleen hantiya ujeeda ma ogi wiilka umaysa jeedin sahro caawad oda ugu jeedaa meelo badan bay taabanaysaa adiga adkay mana maqlay horto sahro su-aashaan ku weydiinayo maadaama qoyska burburka qoyskaan ka hadlayno gabadhu ma sababsan kartaa in iyada la furo burburka qoyska haa way sababsan kartaa sababaha isha sababahay ku sababsan karto waxaa ka mid ah gabadhu marka la guursado horta waa markii ugu horeysay aan dood noocan oo kale usoo fadhiisto ama dad intaan aan damco inaan hadal ka soo jeediyo marka waxaan rajeynayaa inta ila quman inaan ka hadli karo gabadha waxay ku sababsan kartaa gabadhu markay guriga hooyadeed joogto waxaa mas-uulka ah waa hooyadeed iyo aabaheed marka la guursado oo guri iyada ay leedahay timaado muhiimaddu maaha mas-uuliyadda dhan inuu ninku wada qaadi karo ayadana mas-uuliyad baa lagu leeyahay guriga ay dhisatayna mas-uuliyad gaara baa ka saaran awlaaday dhalisa mas-uuliyad baa ka saaran hantida xaggeeda markii loo eego xitaa mas-uuliyad baa ka saaran inay ninka dhaqaale la samayso sifa reerka uu sii dhisnaado okay marka markaad waxaad leedahay gabadha mas-uuliyad baa ka saaran inay qoyskii ay ilaaliso laakiin iyadu sababta ay u noqonayso mala dhihi karaa marka la fiiriyo dhankii dhaqaalaha gabadhii tusaale ahaan inankii maanta wuxuu ku dhaqdo ku hay uu yani ku noolaato unbuu haya waxaa dhacda inay gabadhu samayso inay tiraahdo gurigii baad bedelaysaa maxay ahayd lacagtanaad ku aroosaysaa sababtaas iyada laftigeeda mayna ku keeni dhibaatada ugu badana waxay ka imaatay dumarku maba ogola in lala guursado marka guurka horta ilaahay subxaana watacaala baa qadaray ninka ragga inuu 4 dumar guursan karo waa qadar adiga kaa sareysa mid adiga xukunkeeda ay yeelan kartid horta maba ahanba may mid xukunkeeda yeelan kartid ma ahan laakiin su-aasha sidan ku weydiiyaa waxay tahay gabadhu يعني دقالي نيجي تشوف كيس لا دقالي حنا يا وين نسوق برضو كورسنا وصح أنا سلي تاسوا رأي لا أنت دمر كحيست أي كوكة هاي نابتو مركي إنك لا دقالنتو هنتي ذا يسقو هايستو وحلا دقالنتي المه هذا هو مركوده المه عجو هو مركز لا دقالنتي مركلا دقالنتي إنك عجو هنتي ذا تشوف كيس لا دقالنتي حسين أديك لفت جاجا توبيجن باكا ودنيا nimanka macaqabad bay ku tahay ama markii ay gabadha ay guursadaan oo kale maanta gabadhii wad qabtaa xaas bay ku tahay caruur bay ku dhashay guri bay ku joogtaa markay ay ku tiraahdo maanta gurigii wad adigana laga yaabay inaad inta awoodid oo kaliya ay ku tiraahdo gurigii dahi wad bedelaysaa gurigii wad bedelaysaa caqabad intee leeg bay ku noqonaysaa ninka inuu xaaskaasi iska furo والله هو سؤال لك هذا لكن نورتا أوصل لابتو توبيجا لحريرة قاب سيكولوجيكالي علشان حوين كمركي إمادو سيدي العكتا وفيو جريان يحرق مركي إمادو
ninka raggu wuxuu jecel yahay markuu wax helo inuu waxa double ka dhigo haweeneyduna waxay jeceshahay qaab psychological say u shaqeeyaan waaye inay wax la soo koobo oo gabadha haweeneyda hadday dhaqaalo badan hesho ay xoolo badan haysato hadduu lacag la guursado nin aanan waxba ku kordhinayn maanta dhan way eedaysaa waxa yaraysiiso dhan way ka daba qaadaysaa marka dhaqaalaha stageska uu maro waxaa weeyaan 3 qaybood looga baahan yahay qofka bini'aadamka waxaa la qofka dhalinyarada wuxuu u baahan yahay waxa la primary life waxaa weeyaan inuu qofka horta aasaaska noloshiisa isku filnaansho u hayo shaqooyinka yaryar iyo waxyaabaha yaryar iyo fursadaha aan haysano waa primary life qaybta labaad waxaa la secondary life waa dhaqaale kale amba ila dhaqaaleedka kale qofku markuu sameeyo inuu hore u sii dhaqaaqi karo oo qofka mas'uul ka noqon karo tan saddexaadna waxaa la enterprise level oo ah qofka inuu bulshada hogaamiye iyo wax iyo aragti u noqon karo okay haddii marka su'aashaada usoo laabto ah maxay su-aasheedu waxay ahayd sababta ninka qoyska burburka u keeni karto inay gabadhu tiraahdo gurigii bedel waxaan sameey isagoo keliya haya intii ay ku noolaan lahaayeen iyo ilmihii intii dee nolol maalmeedkii oo keliya horta gabdhaha lacag lama tuso waa laga qarsadaa ragoo ka qarsada inaha okay because of haweenku waxay jecel yihiin noloshooda dhammaan waxaa weeyaan waa few waxaa lahaa haweeneydu waxay u samaysan tahay psychological shayga intayna samaynin ayay ma iska jeclaataa hadda gabar walba halkaan fadhido telefonkeeda waxaa laga yaabaa in wax screenshot ay ka qaada wax screenshot aad ka qaadatay bakeeri wax yar sababtii marka ujeedadii u socdaan dhanna dhaqaalaha waa ugu diran yihiin oo dhaqaalaha way ku cayaarayaan that's why waxaa arkaysaa haweeney oo wax walba aad u samaynayso haddana wax kaloo extra ku weydiinayso marka calashaan haweenku markii calashaan inaad guur ka gaartay haddaad rabtid waa inaad dhaqataa unsubabaawamaan laakiin haddaad ku nooshahay nolosha medium size-ka haweeneydu way ku jafaalaynaysaa dee guriga kugu celinaysaa يعني waxaad ka wadaa adigoo wax kasta u baahan tahay u sameynaysid sidoo qarashkeedii iyo wax ka badan baad siinaysid inay jeebkaaga la dagaalamayso sida lacagta aad meelo kale ula aadid ama ugu bixisay ha because of aragtida oo maskaxiyan ama qaabka uu ninku u fikira waxa ah tusaale ahaan wuxuu helay 1 milyan oo kinshiino gabadhu waxay leedahay hooyo iyo aabba naga waa dabeecad caadi ah markaad guulaysatana waad ku arki doontaa walaasha hooyada way waa psychological dumarka si u samaysan yihiin because of waxay jecel yihiin in nolosha la soo koobo that's why haweeneyda saaxibadeeda lillahi markay hesho wax kale way ka qaraysaa wax zaid oo muhiim u ah qof sareeyo wax markay hesho way ka qaraysaa kan wax ma ogeey kullada iska dhaafasho kaansan waa hagaag aad baad mahadsan tahay waa ku soo noqon doonaa ayaan siinaya maadaama ay hablaha maadaama ay taabanayso su-aasha waan siinaya anisoo mar kale waan kusoo dhaweynayaa dabcan maadaama dooda ay idinka maanta idin dhexeyso aan leeyahay caawa sidoo sheegay inuu wuxuu yiri waxa laga yaabaa adoo qoftii dumareed wax kasta u sameynaysa in jeebkayga cadow ku tahay oo wax markaa aan jirin bay ka fikirayso oo qoysku saako ku socdo horta gaaladu waxay dhaheen tit for tat is a fair game waxaa ragga dumarka waxaa keenaya inay la dagaalaan ninka ragga ah gabadha way ugu samri kartaa wax la-aan gabdhaha badanaa wax la-aan reerka kuma dumiyaan laakiin markuu ninka ragga ah hanti yeesho mise isagoo hanti laha aada soo geshid burburka ugu badan wuxuu ka imaadaa ragga waayo wuxuu oga imaadaa waxay tahay nin aada hoos ka soo dhistay ninka ragga ah gabadha maxaa dhihi jiray waxay dhistaa jeebkiisa waxay kubcisaa noloshiisa waxay horumarisaa noloshiisa maalintuu 1 shilin helana gabar kalu ka bilaabaa ilaa umay saaxiibteed noqoto ogaataa gabadha shilinka ayada soo galo ilaa uu familkeeda ka soo galo mise ay shaqeysa maanta anigoo shaqeeya ilmahaygoo baahan wax kama qarsanaayo laakiin ninka ragga ah wuxuu u badan yahay maalintuu shilin helo gabadhaan ayadoo qurux badan oo guursanaya maalintii ugu horeysay quruxda badneed wuu rabay oo wuu kolkoolinayay laakiin 1 shilin markuu isku arko gabar kaloo issoo turugeyso qurux badan uu raadiyaa waxaa ogaataan ragga kuwada waxaa ogaataan gabadhaan ayadoo qurux badan aad guursatay ayadoo adaa kala daadisa maysan kala daadsanayn marka
gabar adi aad kala daadisay yaad waxaad rabtaa tu kaleeto is haysata inaad raadisid ma fahamtay marka ha degdegin because wiilkaasaa ciilo qaba ma fahamtay degdegin muhiimadda marka waxay tahay ninka ragga ah asaga ma isweydiiyey gabadhan ayadoo qurux badan inuu guursaday in ay asagoo wax la-aan ah ay guursan karto hantida hadday ka dhamaatana ay garab istaagi karto kuma fikiraan waxay ku fikiraan teeda kale hadda maaragtay ragga qaar waxay sameeyaan dumarka waxay ka reebaan shaqada qofka dumarka markuu shaqeynayo ninka ragga dhowr siyaabood ay wax ugu tareen hantida way dhacmaysaa waa dhiman kartaa hadda Soomaali markaan nahay ninka ragga ah haduu dhacmo waa loo tuugsanaa social media looga tuugsanaa ninka ragga haduu dhinto ilmihiisa social media looga tuugsanaa been masarun familkaas uu dhibaataysnaa saan waay hal caabi badanaa waxaa keena xaasidnimada ragga gabdhaha ay ku istaagayaan marka ragga ku istaagay gabdhaha ku istaagaysiin